الله أن تدركوهن أصحابتي مهاجرين تابوا كوها القبصة النبي وحولي شن الرماد مرك الله إذن كسر لذا إلهي بابا كما قال إنه إذن كسر لذا waxa ay noqonayaan jawaabahoodu sida soo socda tawhor raysa waxa la yiraahdo faaxishadu qolo kuma dhex faafto oo ma muujistaan illa fasha fihim ad-da'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madad faaxishadu waa sinada iyo dadkoo iswaxeeyay iyagoo wax meheraba isu haynin oo taasina ay iskaba badbadato oo meelaha ka bidhaamayso laga arkayo oo dadkiiba ka xishoon waayeen haday taasi dhacdo cudurruun baa ilaahay uu ku sallida uu kamid yahay daacun iyo cudurro la garanba waayaba oo aslaaftoodii ama ummadahoodii hore aanay lahayn bal inta cudurada imika sinadii ka dhalatee sinadii markii gaaladu ay xayeysiiyeen cudurkii inagana wayna soo gaaray markaasaa daayartii qaar waxay gaadheen inay yidhaahdaan wiilashiiyo gabdhaha markuu inanta muslaxanayo waynu iska wadi haddaad uur yeelato anaaba kugu qaadan oo dee odayaashii umaan soo diri doonaayo ku qaatuunbaa la odhan uurkan inantan uuraysee waa dhaqankeenii soomaha xumaa waxaad arkaysaa mararka qaarkood magaalada hareeraheedoo tagaasi yaryar baa wada taagan waa meel cidlo ah wiil iyo gabadh baa ka soo boodaya haddii la isdul taago marka cudurrada aidisku ka mid yahay hore u jirin abaalmarin weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka adabta daran ku abaalmarin sidoo rasuulku cadaynayo xigmaawi ilaahay noo soo diray arinta labaad walam yanqusu al-mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sidin wa shiddati al-mauna wa jawri sultani alayhi dadku haday khalkhal ku sameeyaan dhaqaalaha oo tujaartu ay noqdaan qaar bila amaana oo toodu ay u daran tahay oo intu ummadeen eegaynin oo shayga tiradiisa iyo tayadiisa ay qaldaan dawada cunnada shidaalka dharka wax walba tiradiisa iyo tayadiisa ayay khalkhal ku sameeyeen ilaahay wuxuu ku sallidaa abaarabu nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo duruuf adag iyo dad madaxa oo jaa'iriinahoo xaq dabool oo xaq darro ku wada oo midiba uu ka daran yahay ka kale waarkii hore kana kii horaaba dhaamay kan balan ku celina doorashada bal inaynu ka soo rayno way ka sii dart waa ilaahay baa daba socda dadka subxaanahu wa ta'ala illa alla wuxuu inna rabbaka labil mirsad ilaahay dadka dhabagal buu ugu jira iyagu iskama arkayaane isagu uu eegaya kuurku ugu jira isaga raadinayo daba socda marka dadkan ay la yaabsan yihiin ee dubaha uu la dhacay dhibka ku ah ee u talinaya waa shaar iyaga loo tolay iyo waxay kasbadeen arinta saddexaad waxa weeye haday sakada bixin waayaan muni'u al-qatra min as-samaa ilaahayna roobkiisu ka hakiya oo ka joojiya hadii aanay xoolaha mayeedhadu jirin ee aan dambi lahayna looma bashubeen buu nabigu sallallahu alayhi wasallam arinta afraad waxa weeye walam yanqudu ahd Allah wa ahd rasuulihi illa sallallahu alayhim aduwan min ghayrihim faakhadhu ba'da ma fi aydihim hadii ay dadkaasi ballanka ilaahay iyo rasuulka jabiyaan oo noqdaan wacada la qabayaal kii madaxdii been buu sheegaya kii taajirkii been buu sheegaya ku kastoo bulshada kamidi sharciga ilaahay iyo wixii ballan laga qaaday ma fulinayo iyana isuma fulinayo ilaahayna uma fulinayo rasuulkana uma fulinayo ballan la'aan dadku meel lagu soo hagaaga male arintaasi hadii ay dhacdana cadawba ilaahay ku salidaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam kafara maroojiya waxana ilaahay rasuulka u seegeen ay iska kafara maroojinaya arinta shanaad waxa weeye wama lam tahkum aimmatun bi kitaabillahi wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum baynahum haday kitaabka ilaahay ku dhaqmi waayaan iyo waxiga ilaahay uu soo dajiyay oo ikhtiyaarkooda ay ku qaadan waayaan ilaahay wuxuu ku salidaa cuquba uga dhigaa dhexdoodu isku salidaa qabaa'ilkii baa isdilaya kooxii baa isdilaya dawladii yaryar xad kalaha jaarkii baa isdilaya shakhsiyaadkii saaxiibadii dad wada kala nooc ah oo madaxa isla dhacaya oo isba afgaran la ayuu waxay isku dilayaan la garan waayay ayaa meesha ka soo baxaysa laakiin nabiga ay noo sheegay calayhi salaatu wasalaam
kitaabka ilaahay baa midaynta iyo naxariista iyo tawfiiqda iyo qalbi isu yimaada uu ku jiraa waxyigu ku jiraa lishariicati samaaxa shareecadu waxay leedahay macaan iyo waafajina leh iyo ilaahay isku soo dhaweeyo dadka marka laga amar qaato isaguna ummaddu isku ururiyaa marka dadkan kala firdhe faraaraha lana sababtaas ugu caan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa saxiix ibn maajah baa wariyay raximahullah idan marka arrintaa waxaynu ka arkaynaa inay waaqiceen aada uga muuqanayso mid shisheeyaba intaynaan u gudbin sixidda la saxana waxaynu ku heli karaynaa barwaaqada iyo badhaadhaha uu nebi maxamed sheegay sala allahu calayhi wasalam waxaa isweydiin leh dhibaatooyinkan adduunka ka dhacaya cudurradan iyo duruufahan iyo waxaan faraha badani dee gaalun kuma dhacaan caasi oo keliya kuma dhacaan laakiin dad badan oo wanaagsan bay ku dhacaan oo awliya ah oo saalixiin ahoo maati ahoo dembiba gelin oo maxaa iyagana xaggee laga raacay iyana xaggee ka qodax qaateen xaggee laga helay waxaa jirta bani aadamka waxa ku dhaca adduunyada waa laba qaybood qayb waa cuqubo waa qofka caasiga ah cuqubo la marinayo qaybina waa ibtilaa imtixaan weeye ilaahay addoomaha u imtixaanayo dadka wanaagsan dhibka ku dhaca iyaga dembigana ilaahay uu kaga ridaa wixii ku hadhay darajana ilaahay ugu dallacaa marka dadkaa xumi wixii ay sameeyeen haddii duulduul ka soo gaadho ama iyagaba musiibadii wada gaadho ilaahay baa ku darajaynaya xadiid saxiixa oo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim ku sugan waxay warinaysa xaaskiisii zaynab bintu jaxsh ayaa nebigu wuxuu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka ummaddan oo iska soconaysa in dhulka lala goynayo su-aal ba weydiisay saxaabiyadii oo waxay tihi yaa rasuula allahi anhlaku aw anahliku wa fiina saalixuun oo miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dadkii wanaagsanaaba nagu jiraan dad badan oo fiican ee ummaddu mar walba xumaan iskuma raacdo rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam nacam idaa kahura alkhabath waa la yskii raacinayaa marka dad xunka uu bato khabadkaasi haddii dad lagu macneeyo wey ila khabiidka waxa xunna waa la ydhaa camalka xun dadka xunna waa la ydhaa haddii dadka xumi bato ama xumaantuma ay badato intan kalena imtixaan baa looga dhigayaao waa la yswada raacinayaa waataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya buu ilahay yihi balaayo kuwa sameeyo qura aan ku egaanayn waxaynu ogsoonnaho waxayguina barayaa taata ka soo hor jeedo ah inaynu daacada ilaahay badinno oo diinta ilaahay aynu heellanna oo ilaahay aynu ka amar qaadanayno inaynu wanaag adduunyo iyo wanaag aakhiraba ku helayno waan low istaqaamuu calaa dariiqati la asqaynaahum maa-an gadaqa dadku hadday tubta fiican ku toosnaan lahaayeen raxmaadkuba kama kala go-een baa ilahay walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard cir iyo dhulba barakooyinkiiyo khayrka ayaa isqabsan lahaa hadday wanaagga ilaahay ka guddooman lahaayeen subxaana wa tacaala una mahadnaqi lahaayeen oo nicmadiisa ay badin lahaayeen xalku waxa weeye walaalayaal waa arkaynaa inaynu dee ilaahay iska dhaadhicin aynu isu ammaano maahee xaqiiqada qof waliba naftiisa haddaanu been sheegayn ama mujtamaceenna waynu arkaynaa waxaa dhiba jira xalku waxa weye ina ilaahay toobadkeena subxaana wa tacaala ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa ummadda iimaan kalea ilaahay u yeedho wuxuu leeyahy iimaanba a iska lahaateen oo ashahaadateen haddana dembigii waa badan yahay ilaahay u toobad keena toobadana shardi baa ku xidhane toobad nasuuxa oo wanaagsan oo saafiya casaa rabbukum an yukafira cankum sayi-aatikum ilaahayna wuxuu xaqiiqo ku yahay dembigiinna markaa uu idinka dhaafi aa gasheen wayudkhilakum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar jannooyin qiimo badan oo biyuhu hoos qulqulayaan iyo caanaha iyo malabka ayaa ilaahay u idin siin doonaa waxaa intaasii raaco walaalayaal dee waxani waa waxaa adduunyada ku faafaya oo dadkeennii ka yimid baaba iman kara oo dee aynu ka qaadi karnaa marka talada dhakhaatiirteennu ay bixinayaanna waxa weeye ugu horreynba dhowrkan arrimood ama shantan arrimood ta koobaad waa tii ilaahay uuna faray ta koobaad oo ah nadaafadda inaynu ku dadaalo ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu almutatahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa toobadkeenka badane qalbiga nadiifiya xaggooda hoosay nadiifiyaa nadaafadda dushana way jecel yihiin oo dahaaraday ku dadaalaan deegaankooda dharkooda jidhkooda intaba sidaa daraaddeed waxaynu aada u badinaynaa weysada
wamaa adraaka ma alwuduu weysada maxaad ka taqaanaa nebigu inagu waaniyey sala allahu calayhi wasalam in la cusboonaysiiyo weysada cusboonaysiintiisa salaad walba in loo weysaysto adigoo iska weyse qaba inaad weysaysato xubnaha laga weysaysanayo macnaha marka laga hadlayo weysada iyo caafimaadka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee wiqaayada sameeya lagu ilaaliyo cudurrada ayay ka mid tahay weysadu oo waxaynu arkaynaa 4 meelood ama 5 meelood ee boodhka iyo bacadka iyo bakteeriyada waajaha ee la kulma baa laga weysaystaa labada gacmood labada cagood iyo kurtii la madaxii la meydhay wajigii la meydhay sankii afkii dhagihii wixii oo dhan kurtay ku yaalaan intaasaa aynu had iyo jeer boodhka iyo wixii soo duulaya iyo waxa la wixii ibanaya oo dhan intaasay naga marayaan intii baa lagu yiri 5 jeer ama ka badan marka sunna weysis de sunna tukanaysana weeraan faradkii 5 jeer weysisa baa lagu dad weysadii cusboonaysiinayso nabiguna saas uu alayhi salaatu wasalaam intu salaadaha isku weysa qabi jiro weysa qab ku tukan jiray may badnayn kana yujaddidu alwudu weysada uu cusboonaysiin jiray marka arintaasina cilmiyan waa mid la soo taabtay hadda inay qayb weyn ka hortaga shayga la yiraahdo cudurrada qayb weyn ka tahay weysada taas waa mid labaad marka aynu hadiya jeer qofku de uu hindhisayo ama qufacayo inuu iyadana ku dadaalo waxaan yara afka lagu nadiifiyo saftiga ama hadduu waayo maradiisa inuu ku daboolo waanu ina baray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam midkiin hadduu candhuuf tufayo buu maradiisa ku tufo waxaaga isu qabadiga ha kugu eegaadaan dad kale ha gaarsiin marka taasi macnaheedu waxa weey haddaad masaajidka joogto iska tufi daaqada ha ka tufina ku eegow oo marada iyo saftiga yaad ku tufaysa sidoo kale waxyaabaha aadka u muhiimka waxa kamida markaynu xamaamka ka soo baxno ama aynu doonada inaynu wax cunno inaynu faraxalano nabiyullaahi maxamed baa inoo jiray sallallahu alayhi wasallam fariin caafimaad casrigan ha laga dhigo laakiin rasuulkaaga inoogu horeeyay oo aynu kaga dayanayna markuu xamaamka ka soo baxo muxuu sameyn jiray nabigu ciidu faraha galin jiray gacanta ku istijooday gacantiisa shariifka ah sallallahu alayhi wasallam oo balaayo bakteeriya lahayn haddana si ummadda tusaale u noqdo ciid istarala ama nadiifa ayuu sidaa u gelinayaa markaasuu ku xoqaya waxyaabaha wax lagu dilana de ciidda ugu mudan sida de la yidhiba ayga nijaastiisi ciidda lagu maydho marka ciidda iyo biyuhu gacanta ku maydhaya marka wixii aan hesho caruurta in la baro oo ehelka la baro oo jaariyadaha la baro oo shaqaalaha la baro cudurrada wareego dhan waxyaabaha ilaahay uu ku ilaaliyo ilaahay baa ilaaliye waxa kamida nadaafada ay kamid tahay gacmaha la ilaaliyo qofka meelaha hadiyo jeer xamaamada iyo waa inay yaalaan wax lagu nadiifiyaa saabuunta shaambooga waxyaabahan qaalic ah jara cudurrada wareega taasina aad bay muhiim u tahay iyo qofku marka uu hadiyo jeer raashinka cunayana inuu faraxasho iyana aad bay muhiim u tahay waxa kamida qofku marka gacantiisa meelo badan uu marmariyo inaanu usleeyahay gacanta waxbay soo qaata ama nadiif maaha inaanu sanka iyo afka iyo indhaha iyo meelii manaafidahay daldaloolay ilaa waa wada xasaasi dhulkaas in aanu qofku marmarinin ee gacanta uu ka ilaaliyo waxa intaasi raacan uu qofku hadduu dee isdareemo inuu xanuunsanayo wax walba uu noqon karaa xanuunku kan dee faafana waa noqon karaa inuu goobaha caafimaadka si dhaqsa ula xidhiidho shanta arrimoodba aad bay muhiim u yihiin oo sharcigeennuna uu inoo sheegay waana lagu talinaya had iyo jeer mar walbana alwiqaayatu khayrun min alcilaaj waxaa la yidhaahda ka hortagga oo islaamkeennu ina farayo wuu ka fiican yahay ka dabatag oo ah shayga la yidhaahda isdaaweynta xataa karantiimayntii baa sharcigeenu ina farayo nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam siduu noo jideeyey meel haddii daacuun ka dhacabu inta ku jirtaanayay ka bixi cid dabadda ka soo gashaanayay jirin